mudane Axmed Cabdullaahi Aadan waxaana mas'uulkani aan ka wareysan arrimo ay ka mid yihiin arrimaha dhinaca doorashooyinka kaalinta dhinaca ilaalinta amniga deegaanka Soomaalida ee uu ka qayb qaadanayo xisbiga ONALIF intii xisbiga uu ka galay tacdiyadii haatan ka hor lagu hayay bulshada deegaanka Soomaalida iyo waliba halganka nabadaysan ee waqti xaadirkan uu ku jiro xisbiga ONALIF ee ku aadan sharafta iyo waliba xuquuqaha ay leeyihiin bulshada deegaanka Soomaalida mahadsanid mahadsantahay wariye Cabdiraxmaan waan dhawahay waan mahad celinayaa xafiiska TV-ga ETV laantiisa afka Soomaaliga maadaama aad soo booqateen waan idinka mahad celinayaa inta markaa ka gudbo xafiiska ONLF laantiisa Addis Ababa waa xafiiska xiriirka arrimaha siyaasadda iyo xiriirka arrimaha dawladda dabcan hawlaha ugu muhiimsan ee uu ku hawlan yahay waxa weeyaan maadaama hadda xisbi axsaabta waddanka ka jirta ee siyaasiga uu ka mid yahay xisbiyada heer dal uu ka mid yahay hawlaha guud ee Addis Ababa iyo guud ahaan dalka ka jira maadaama xaruntii dalku ay Addis Ababa tahay axsaabtii iyo stakeholderskii guud iyo xarumihii dawladuna ama Addis Ababa yihiin la macaamilkeeda iyo la falgalkeeda ama fulinta barnaamijka siyaasiga ee ururka ayuu inta badan xafiisku uu ku hawlan yahay ama uu qabtaa marka si guud xafiiskuni waa xafiis ballaaran xisbi heer dal ah oo axsaabta waddanka ka jirta doorashada lixaad hadda fowda inagu soo haysa diyaar u ahna uu xisbigu ka mid yahay hawlaha guud ee dalka ka jira iyo nidaamyada barnaamijyada xisbiyadu fulinta barnaamijyada siyaasiga ee xisbiyada xafiiska ugu lafdhabarta u ah xarunta ku yaala weeyaan marka hawlahaas baa ugu badan waxyaabaha uu xafiisku ku hawlan yahay waqti xaadirkan maadaama hadda doorashooyinka lixaad ka qabsoomina dalkan ay fowda inagu soo hayaan ka xisbi ahaan waqti xaadirkan maadaama doorashooyinkii lixaad dalku ay dhawaan qabsoomayaan ka xisbi ahaan u diyaargarowgiina ku aadan sidii aad uga qayb qaadan lahaydeen doorashooyinkan bal faahfaahin nooga bixi u diyaargarow intee leeg baad ka samaysan arrimaha doorashada waa muhiim runtii horta xisbiga ONLF waa xisbi muddo dheer halgan hubeysan kusoo jiray oo sidaan ogsoonahay xukuumaddii macangaga ahayd ee muddada 30 sano ah ku amarku taagleynaysay guud ahaan dalka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed mid cadaadis iyo xasuuq baan ku haysay bay ahayd xisbiguna waxyaabihii uu ka dhashay dhibaatadaas iyo tacdiyadii loo geysanayay dadka Soomaaliyeed buu ka dhashay ama ahmiyadii lagu aasaasay ahayd iyo u istaagidda aayaha ummadda Soomaaliyeed markii hadda isbedelku yimidayna wuxuu noqday xisbi siyaasiya sida la ogyahay halganku noocyo yeelan karaa mid hubeysan oo qoriya iyo mid siyaasi oo qalin ku bees garaysan marka intii hadda isbedelku dhacay xisbi siyaasi oo qalin ku halgamaya oo afkaartiisa siyaasiga iyo ahmiyadiisa iyo yoolka uu aasaasan yahay nidaam nabadgelyo oo qalin ah ku fulinaya ayuu noqday waxaan ogsoonahay intii isbedelku dhacay mar hore doorashadu in la qabto xilligeedu ku beegnayd sababo jiray awgood waa tii ay dib u dhacday xisbigu markaa diyaargarow ballaaran buu ugu jiraa doorashada lixaad ee la filayo waddanka inay ka qabsoonto isaga iyo bulshadiisa iyo taageerayaashiisaba waxay runtii aada ugu rajo weyn yihiin mar inay doorasho xalaali waddanka ka dhacdo inkastoo aynan hadda ka hor waddankeena kasoo jirin hadda waa wareegii lixaad intii wareegyadii hore oo dhan ba aynan kasoo jirin in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaala oo cadcadaana oo shacabku wixii ay rabitaankooda ku doortaan ay si xalaal u soo baxaan laakiin haddana rajo ka duwan baan qabnaa sanadkan ama wareegga lixaad isbedelkii kadib waxaa muuqata fagaarayaal muhiima ama isbedel muhiima oo ilaa heer deegaan iyo ilaa heer dalba ah kaas oo la filan karo doorashada lixaad ee nagu soo wajahan inay noqon doonto mid ka duwan doorashooyinkii hore shacabka Soomaalida deegaanka Soomaalida ku noolna waxa ay mar walba sugayeen in ay timaado fursad ay codkooda ku dhiibtaan oo cid iyaga ay doorteen ay matasho
marka xisbigu isagoo ka duulaya halkaas oo danta shacabku xisbigu mar walba wuxuu ka duulayaa danta ummadda Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida marka isagoo taa ka duulaya doorashada lixaad ee fowda inagu soo haysa si ballaaran buu ugu diyaar garoobay barnaamijyadii siyaasiga ah ee doorashada lagu galayay inuu diyaariyay rajowna ka qaba xisbigu in uu doorashadan hadii ay mid cadaalad noqoto inuu ku guuleysanayo isagoo ku kalsoon shacabkiisa popularity-ga iyo kalsoonida bulshada oo haystana ay mid heer aad u sareysa ay tahay waxa marka aan ku rajoweynahay inay doorasho ka duwan doorashooyinkii hore ay wareegan lixaad ee la filayo fowda inagu soo haya ay dhici doonto waxaanan hubnaa oo aan kalsooni buuxda ku qabnaa taageerada shacabka deegaanka Soomaalida mahadsanid mar labaad wariye Cabdiraxmaan horta dadku waa mid dhici karta taas ama aragtidaas waa mid jirta way dad badani qabaan ama magaca afarta xaraf oo ay u arkaan in ay just khaanad gaar ah ku jirto ama ay meel gaar ah ku bees gareysan tahay which is totally wrong markaan runta ka hadlo xisbigu barnaamijkiisa siyaasiga ah iyo xeerarkiisa iyo yoolkiisa iyo mabaadi'da loo aasaasay iyo waxa uu xisbigan u taagan yahay markii aad si dhab u daristo just ma noqonayso totally wax ka duwan image kaas hadda dad badan ka dhex guuxaya wax ka duwan baa ayaa u soo baxaya dadkan runaantii waxay dadka Soomaaliyeed ay wada qirayaan meel walba oo joogaan in dadkani aynan marna helin xuquuqdoodii asaasiga ay lahaayeen xuquuqdooda asaasiga ah ee lahaanshaha dhulka iyo matalaadooda siyaasiga ah in ay dadkani xor u ahaadaan waxay ku xidhan tahay ama ay ku bees gareysan tahay inaad ku dhiiran karayso ama aad just aad caddayn karayso rabitaankaaga dhab tahay iyo waxaad fiil garaynayso ururkan magaca uu wato just Ogaden waa dhul weeyaan waa dhul magacii dadku waa magac gumaysi bixiyay maxaan u wadanaa way dhihi karaan waa su'aal ama beel kamid ah beelaha deegaanka Soomaalida degta waa magaceed waa la oran karaa laakiin totally xisbigu wuxuu ama ururku markii u horeysay la aasaasayba wuxuu ku aasaasnaa ama loo aasaasay dhulkan Ogaden loo yaqaano ee gumaysigii cadda ee dhulkeenan haystay Ogaden u bixiyay in magacaas uu loo bixiyay beesha caalamka iyo wadamada caalamka ay u yaqaanaan iyadoo laga duulayo in loogu raadiyo wixii marka rabitaankeena raadsanayno haddana just raadraac ahaan iyo waa wadiiqo halgankani lagu raadhayn karo lagu raadcayn karo darteedun baa loo watay ummadda Soomaaliyeed waqtiga doonto intay magacay doonto oo la bixi karaysa taas caqabad oo ay leedahay male si guud horta ururku mar haddii uu urur xisbi ka diiwaan gashan dalka oo si dawli ama si sharciya dhaqdhaqaaqyadiisa iyo siyaasaddiisa u fulinaya si hab nabadeed waafaqsan uu yahay waxaa faraha koobaad uu yahay in nidaamkaas aad markaa ama aad la shaqeynayso adoo mabda'aaga iyo hadafkaaga iyo afkaartaadu ku gaar tahay wada shaqeyntu waa wax mar walba lagama maarmaan ah xisbiguna heshiis nabadeed buu la galay dowladda Itoobiya 21 August 2018 magaalada Asmara waddanka Eritrea heshiiskaas wuxuu isbedelkii kadib uu horseeday dadkeenu deegaanka Soomaalida dadkii islaynayay walaalaha ahaa la isku dilayay in at least ay dadkeena aynan islayn maanta ay noqdaan dad nabad ku wada nool sida aad ka dhawaajisayna deegaanka hadda dalka Itoobiya la isku yiraahday guud deegaanka ugu nabdoon uu yahay hadda ka horna aan garan karno iyadoo Itoobiya ay nabad ballaaran ka jirtay in uu deegaankeenu ahaa goobaha ugu dagaalada ama ugu xasaasisan taas marka hadda
qayb libaax bay ONLF ka qaadatay deegaankeenu inuu nabad ahaado, dadkeenu inuu islayn, inuu nasto, dadkeenu inuu ka fikiro hadda ka hor hebel baa shufta iyo hebel baa seelihi iyo hebel baa dabaqoodhi hadii inuu ka gudbo oo uu ka fikiro dadkeenu maanta sidii uu isagoo mid ah waxa ka maqan isu weydiin lahaa. Saan ogsoonahay xukuumaddii macaanka ahayd ee TPLF ay hoggaanka u haysay kasoo inay dadkeena laysay oo xasuuqday oo wax xidhay wax barakeysay, haddana ideolojiyad waxaa jirtay dadkeena ay ku beertay dadkii daayartii deegaankeena guud ahaan inay dadkeenu ay siyaasaan oo inan xuquuqdooda aynan ka hadli karin, aynan ku dhiiran karin, ay dad si u bahdilan ay noqdaan dad just u arkaya haddii ay xaqooda ka hadlaan ama xuquuqdooda ka hadlaan inay khaldan yihiin ama la xidhayo ama dhibaato loo geysanayo. taas marka waxay aad waxyeelo u yeeshay dareenkii wadaniyadeed ee deegaankeena iyo dadkeena. marka taas in dib loo soo nooleeyo, dadkeena uu nasto, uu dagaal ka fikirin, uu wadajir iyo midnimo uu maanta uu focus ka saaro ama uu awood saaro. guud ahaanna maamulka deegaanka ka jira iyo guud ahaan xukuumadda xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan baa naga dhaxaysa. way dhici karaysaa ama ashkhas ama mararka qaar waa la kala fikir duwanaan karaa, amaba waxyaabaha qaar oo laga yaabo in social media la isu yara marmariyo dadka qaar inay u arkaan inuu dagaal jiro ama la isku dhacsan yahay. laakiin totally ururku wuxuu cadaynayaa xukuumadda deegaanka iyo guud ahaan dowladda federaalka haba inuu xiriir wanaagsan la leeyahay. xiriirka wanaagsan iyo dulqaadka ONLF ay sameynaysa iyo just political majority ay ONLF ay muujinaysaa waa mid horseeda in ay maanta deegaankeenu nabad ahaado, haba yaraatee wax colaad iyo wax xabad ayna ka soconin. dadkeenu hadda uu u baahan yahay qaabkii intii loo mideeyo loo jiheeyo xuquuqdiisa uu uga hadli lahaa, doorasho uu isagu rabitaankiisa cid uu doonayo uu ku doortayna ay dadku loogu diyaarin lahaa. waxaa la wada ogsoon yahay ONLF intii ay xafiis ka furatay Addis Ababa, xafiiska arrimaha siyaasadda iyo xiriirka dowladda. xafiiskani waxyaabihii ugu horeeyay uu ahmiyadda koowaad siiyey wuxuu ahaa jaaliyad ballaaran amaba Soomaali ballaaran oo waxaa joogta Addis Ababa ku nool. Soomaalidaas marar kala gedisan ama xilli kasta waxay la kulmaysay dhibaatooyin fara badan dhinaca adeega iyo dhinaca guud ahaan joogitaanka iyo xuquuqaha ay asaasiga ay leeyihiin. maadaama xaruntii dalka tahay Addis Ababa magaalo caasimada, 9 dowlad deegaan Sidaama markii lagu daro 10 dowlad deegaan iyo labada maamul magaalo ee dalka ka jira, bulshada ku nooli way u siman tahay magaalada Addis Ababa. Soomaaliduna dadkaas bay ka mid tahay inay marka xuquuqdeeda asaasiga ah hesho, waxyaabo ay ku dhibtoonaysay bay hadda ka hor. waxyaabihii markii u horeysayba uu ururku markuu xafiis xaan ka furtay uu ahmiyadda koowaad siiyey waxay ahayd in jaaliyadaas uu u dhaqdhaqaaqo oo uu jaaliyadaas iyo isku xidhkeeda iyo abaabulideeda uu awoodda saaro. taasna waxay dhashay maanta in Addis Ababa jaaliyad ballaaran baa ka jirta oo ururku uu leeyahay si guud, ama jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Addis Ababa joogta, in at least maayarkii hore hadda ka hor magaalada jir laga bedelay taa kale inta aan Adani Shabaab iman, in aan la kulanay ururku la kulmay magaalada Boole Mikail iyo adeegyada ka jira iyo Soomaalidu si ay ugu dhibtoon tahay. guri kira ay degan yihiin, aqoonsi xitaa ma guri kira number baa looga baahan yahay, aqoonsi xitaa ma qaadan karaan. marka dadkaas in ay helaan adeegooda, tusaalahan Soomaali ilaa dhowr boqol kor u dhaafaysa in aan mar diiwaan gelinay oo aqoonsi la siiyay baa dhacday. in Boole iyo magaaladan xaafadda Soomaalida wax laga bedelo jidadkeeda, codsi aan hadda ka hor gudbinay ahayd maadaama ciriiri badan iyo saxmad iyo qashin iyo waxyaabo fara badan uu jiro. dhowr laamiyo ama dhowr wadooyin oo cobblestone ayaa arrinta iyadoo laga duulaya taa kale maayarkii hore uu hirgeliyay. guud ahaanna jaaliyadda halkani in matalaad siyaasadeed iyo matalaad xuquuqeedba ay yeeshaan oo dad jira oo jooga caasimadii dalka ay ahaadaan, dadaal fara badan oo aan gelinay baa jira oo inahaas aan ku taabtay qayb ka yihiin. waxaan ku hawlanahay hadda iyadoo kaliya arrimaha doorashada ahayn, haddana arrimaha jiritaanka Soomaalida Addis Ababa joogta, ama arrimo baasaboor ha noqdaan ama arrimaha aqoonsiyadaas ay caqabaduhu ka haysteen iyo adeegyada guud ha noqdaan,
in ufudaydinta facilitiyada muhiimka ah ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed ee Addis Ababa ku nool communitygaas in ay helaan dadaal fara badan baan ka wadnaa waan ku hawlanahay hawshaas. guddiga doorashadu ee qaranku wuxuu u aasaasan yahay ama ay ahmiyadiisu tahay wadankeena hadda ka hor sida aan ognahay kama jirin multi party system waxa la yiraahdo ama party bisahanad kama jirin in arintaas ay dhaqan gasho dimuqraadiyad asala kuma iman karaysa iyadoo just monopoly system uu wax common yahay ama wax jiraya sida hadda ka hor wadankeena ka jirtay in multi party system kaas ay hirgalaan dadku ay choices yeeshaan ay dadku xor u noqdaan cid ay taageerayaan iyo cid ay u codeynayaan waa caqabad Ethiopia hadda ka hor haysatay haddana guddiga doorashadu uu aad ugu hawlan yahay wax ka bedelkeeda onlifna xisbiyada wadanka ka jira sidaan ogsoonahay xisbiyo fara badan baa hadda ka hor isdiiwaan galiyay laakiin ilaa dhowr jeer oo shuruudo lagu xidhay la soo buuxinayay axsaab waxaa jirtay la kansalay ama laga noqday ognaagi ama aqoonsigii 47 xisbi baan jeclahay hadda shirkii u dambeeyay inkastoo ay qaar wali processka ku jira oo shuruudo soo buuxiya lagu yiri ay jiraan guud ahaan hadda laakiin 47 xisbi 53 baan filayaa laakiin 47 hadda yaa diyaar u ahaa ama la cadeeyay inay doorashada diyaar u yihiin 5 ama 6 ay wali process ku jiraan marka axsaabtaas wadanka ka jirta ee tirada badan qaarna waa heer dal qaarna waa heer deegaan onlif marka waa xisbi heer dala xiriir toos ah ayayna la leedahay xisbiga waxaan yiraahdaa guddiga doorashada hadday noqoto si guud ama arrimaha doorashada ha noqoto ama shuruucda guud arrimaha doorashada iyo wax ka bedelka nidaamka siyaasiga ee xisbiyadaba ay daily xisbigu ku hawlan yahay waa mid uu xisbiyada mar walba uu la wadaago mar walba oo uu ama mariya ama shuruuc la soo saarayana maadaama regulatory body uu yahay xafiiska doorashooyinku wuxuu stakeholderskiisu ayuu kala discuss gareeyaa intaan horta baarlamaanka laga ansixin ka hor marka mar walba wuxuu ku hawlan yahay axsaabta iyo qaabkii wada shaqeyntooda iyo shuruucdaas mar walba dhiraandhirintooda iyo dhaqangelintooda xisbiga aan lifna axsaabtaas wadanka ka jirta xisbiyada heer dal ugu weyn buu ka mid yahay marka koowaad si guud ururka onlif waqtigan lagu jiro iyo marxaladan hadda wadanku ku jiro waxa uu ku hawlan yahay waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida ku nool ama DDS ugu yeedh ama Soomaali galbeed ugu yeedh ama Soomaalida ogaadeen ugu yeedh nin walba wuxuu markaas uu isaga ugu yeedh laakiin inuu deegaanka Soomaaliyeed oo ballaaran oo khayraad badan leh bulshada u tira badan ku noolshahay dabcan inuu yahay waa muhiim fariinta marka aan u gudbinayo si guud horta fariinta aan shacabka deegaanka Soomaalida u gudbinayo waxa weeyaan shacabku waa shacab 30 sano iyo u dambeysay intii ka horeysayba shacab dhibtoona weeyaan waa shacab nidaamka dawliga ah u bartay cadaadin iyo awood iyo amar ku taagleyn shacabkeenu maanta inuu sidii hore si ka bedelan u fikiro waa laga maarmaan baan aaminsanahay in ay shacabkeenu u midoobo dantiisa u midoobo maanta Ethiopia xaaladda ka taagan iyo deegaamada dalka marxalada ay ku sugan yihiin waan u jeednaa ma sha Allah deegaankeenu waa uu nabdoon yahay laakiin haddana fursadda aan maanta aan haysano inaan ka faa'iideysano nabadaas iyo isu imaajinkeenna xisbiyadii kala gedisnaa ee hadda ka hor loo arkayay inay yihiin xisbiyo caqabad ku ah dalka ama deegaankaba oo burburinaya guud ahaan intii la isu yimaado in la tashado danta ummadda Soomaaliyeed iyo wada jirkeedana mar walba la xoojiyo
si guud ummadda Soomaaliyeed baan yaan fariinta ugu dirayaa si gaar ah taageerayaasha ururka ONLF waxaan u sheegayaa ama aan fariin jeclahay inaan fursadan uga faa'iideysto xisbigu isagoo mabdi'iisii iyo afkaartiisii loo aasaasay ayaan wax iska bedelin haddana xisbi si nabada u halgamaya oo axsaabta waddanka ka jirta kamid ah doorashada lixaad la filayana diyaar waa inuu yahay in ay maanta ay ONLFna ka shaqeynayso ummadda Soomaaliyeed sida ay xuquuqdeeda iyo xaqeeda ay leedahay iyo danta ummadda Soomaaliyeed inay u istaagto ay diyaar u tahay si nabada ugu istaagto si qorigii shalay toole isu keen adeegsanaya meesha uga baxo waji nabadeed iyo wadiiqo nabadeed in la furo waa laga marmaan taas daraaddeed markii isagoo ONLF ay danta ummadda ay mar walba ay ka duuleyso in qaab nabadeed ay xuquuqdeeda ummadda Soomaaliyeed ku raadiso ayay diyaar u tahay ONLF in shacabka Soomaaliyeed marka uu fursadan maanta ka faa'iideysto waa laga marmaan isagoo midaysan oo mid ah reerka iyo qabiilka iyo caqabadaha yaryarka ee dhexdeedna ka jiri kara intuu ka gudbo si guud inuu u fikiro dantiisa maanta uu wajaho waa mid aan isleeyahay xilligeedii baa la joogaa taageerayaasha shacabka taageerayaasha ururkana waxaan leeyahay doorashadii lixaad baa food nagu soo haysa ONLFna ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato waa fursad aan aaminsanahay in ururkuna uu ahmiyadiisii iyo yoolkiisii uu kusoo bandhigi karayo haddii uu shacabka Soomaaliyeed taageerada uu ka haysto ay uga faa'iideystaan oo ay doorasho xisbiga ONLF ugu soo baxo marka shacabka Soomaaliyeed in ay si guud ay dantooda gartaan oo midoobaan waa fariinta koowaad taageerayaasha ururku in ay u diyaar garoobaan arrimaha doorashada iyagoo amniga iyo guud ahaan midnimada ummadana ilaalinaya si guud axsaabta kale ee dalka ka jirta ama deegaanka ka jirta طبعا وحلقي أي أحسابت الصومالية هذا يمدوب له أما حكومة هالنقطة وهو حل هذا حكم كهي هالنقطان أما كو معارضة هالنقطان حلقي اللي مدوب لها عند اللي سقبسن لها جس ومد الصوماليين اللي جاهين لها وذيقة وضوء أي دنت ومد الصوماليين أي كوقة تنطق أين يوجهان حلقي أي مسنها إنه كتيرنا guud ahaan in dawlad iyo xisbiga iyo axsaabta iyo shacabku intay gacanta isqabsadaan ay arrimaha doorashadana aynan nagu noqonin hadda ka hor maadaama aan nidaam aan u baranay qol madow lagu codeynayo oo boqolkiiba boqol xisbi hebel baa kusoo baxay in la yiraahdo hadda nidaamkan in aynan ku hafanin aan uga faa'iideysano in ay shacabkuna si xor ah cid ay rabaan ay u doortaan xukuumaduna ay ka shaqeyso isku duubid isku xidhka iyo wadajirka ummadda iyo guud ahaan axsaabta Soomaaliyeed aad baad mahadsantahay mudane Axmed Cabdullaahi Aadan agaasimaha guud ee xisbiga ONLF xafiiska laanta magaalada Addis Ababa wareysigan aad nagu siisay bahda laanta afka Soomaaliga ee TV waad mahadsantahay waad mahadsantahay dantuna kala meel geysay
dantuna kala meela geysay nasiibku anu dhaboobi soo degi calabkii maqnaana isdaaweyn waa bastoode hadmay kalinimadu dayn dayni kalinimadu dayn dabiibku anu dhaboobi kashooda kadagi culaysku dabiibku anu dhaboobi kashooda kadagi culaysku israba isna doortayba lama